yes ugu dambeyn Manchester City waa la qabtay ani weliga ha iga shakin hada iga shakisan tahay horta soo dhawaada asxaab Gunners inta dhiiga Gunners ku jirta soo dhawaada mucaarado iska bax maanta maalintaada ma ahan waa maalintii Gunners waa maalintii taageerayaasha Arsenal meel walba ay joogaan tamashleen laayeen waa maalintii farxadda Gunners waa maalintii dabaaldega waa maalinteena waa maalin aad nooga weyn Arsenal fans Everton madaxay ii saaran tahay Everton waa wataa ani Everton ma ka shakinay Everton oo Manchester City la ciyaaraysa arka ma ka shakinay kulankii ugu dambeeyay oo aan soo duubay ogeed maalintii Arsenal ciyaaraysa saadareynta dhiibanay kooxooyinka badinay sidooda ku sheegay kulankan Manchester City ne in draw ku dhamaan doon kulankan Manchester City in draw ku dhamaan doonana isla maalintaas sheegay waxaada isbuucan waa isbuuc ili kala haari lahaa isbuucan Arsenal iyo Manchester City iskuma dhignaan doonaan Manchester City isbuucan way u dhamaanay Arsenal ugu yaraan 3 gool ay ku badinay warkii waa kan weliga ha iga shakin qabiir ina ahay ha iga shakin dadka kubadda agta daaqada ka soo gali ma fahansan wax ama fahmi doonaan laakiin tan waa Gunners dadkeeda inay Gunners ay kulankeeda ahaa kulankan xalay anagoo dhan waa qeyr jabana ku jirnay Everton xirdeen gambir toosa u dhigtay waa markii ugu horeysay Manchester City kulan ciyaaraysa ay gambir u dhiganay hadda kulanka soo socda oo West Ham uu iyala gambirkeega kan hal dhibcay beelaan ba kaas waa la garaaca waxa ku dhahay hadda meel ku qoro kulankaas haddana Manchester City jab kala ku soo socda kulanka West Ham ay leeyihiin Manchester City jab kala ku soo socda ani ha iga shakinin wax meesha ani qabsado waa qabsaday wara gambir ma iska dhiganay ani gambir iska dhiga koox ciyaarayso gambir iska dhiga dadka u dhigtay haweenkii laakiin lagu dhigay waa ogaay markaas fadhiisana ani maxaa markaas ay fadhiisi meesha maxaa ka qabana hadii aan ogaay meesha inay waxba ka soo socon ma ku fadhiisana ani inaan ku fadhiista iga sugin laakiin maalintan ku fadhiista oo aan gambirku soo qaato oo fadhiista maarag iska qoos hal dhibac wax ka badan ha ku tishan ama waa lagu garaaca ama dharooway ku dhamaanay hadaa aan fadhiista hadda kulanka kale oo Manchester City West Ham la ciyaar rabta kulanka soo socda oo Manchester City ciyaar rabta waa fadhiya asigan gambirkii wuu iyala Arsenal horyaalkan ugu yaraan 7 dhibcood ay ku qaaday ama 9 dhibcood ma raba ani inta hataa 9 dhibcood mise 7 dhibcood aan ku qaadaa minimays warkan wuu adiya haddana meel ku qoro muuqaalkan draft gasho horta muuqaalkii hore draft ma gasho hadaladan ku sheegay ku soo cesha saadalintan dhiibti ku soo cesha kadib tan markaas qoro kan markaas wax ku noqon doona laakiin hadii aan muuqaalkii hore soo daaban kan waxba ma ku taraay sababtoo ah marumaysan kartid waxyaabaha aan sheegay inay sidooda ku hagaageen ama saa ku sheegay inay ku dhamaadeen marka taageerayaasha Gunners xalay Manchester City bareejad babariyay ku la imaad irfriiga waqtigii oo wax ku daray ciyaarta 6 daqiiqo ugu daray 6dii way dhamaatay tii 7 goosh iga dhaliyay halka dhibcaad u diiday ka waran xaasidnimo meesha ka gaari xaasidnimo meel aan ka gaari Manchester City xalay ani halka dhibcooda u diiday halka dhibcood inay qaadato ma ogoleen say ku qaadan kartaa halka dhibcood inay qaadato ma ogoleen ani say ku dhacday inay hal dhibcood qaadataa taagana refriga igu daayno 6 daqiiqo lagu dari ko inta 6 daqiiqo markay dhamaatay oo dhaawac soo gaari dhaawacaas yarka ah halka daqiiqo la iga faa'iideystay waliba wuxuu dhaawacmay 6 daqiiqo lagu dari markay dhamaatay uu dhaawacmay inuu dhaawacmay ahayn oo meesha inuu ku haayo kubadda si haayaan hal daqiiqo kale ugu daraan gool hay Pickford ugu halay banaanka u soo laba gool asoo banaanka jooga laga dhali ninkan geel lahay question of midkan la dhahay way iska dhiibinayeen ba xalay war haween kasta saan sameeyaa hadda markaan ku leeyahay horyaalkan Arsenal qaadaysa markaan ku dhahayay ima rumaysanayna laakiin hadda waa rumays sabab kalaan ku sheego oo Arsenal ku qaadaysa horta kooxda gool dhaliska badan ama weerarkeeda fiican yahay horyaal ma qaado guulana ma gaarto laakiin kooxda daafaceeda adag yahay hal gool haday ka dhalis maxaa ku dhahay kulankii hore haday hal gool ka dhalis
way adag tahay si aa ugu imaadid laba gool hadday kaa dhalisan boorsaa isku qabsa albaabka ka bax bal xalay iyada Manchester City ilma amal iyada comeback lagu sameeyay marka ku leeyahay horyaalkan waa kay Arsenal Everton iyadoo la ciyaaraysay gool ku hormartay goolkeeda 3 looga bedelay iyada laba gool shaxaad hadana ku keentay City meesha daafac ma ku haysa gaarkan la dhahayo koox la degtuureedin ninka waa taageero Arsenal waa taageero Arsenal ma aaminaysid laakiin adi ninkan ilaa yaraantiis Arsenal taageero u ahaa horyaalka inuu iga caabiyo meesha u imaaday oo munu ii qabta Arteta xalay haween Arteta kooxdiisa ciyaaraysay kooxdiisa horyaalka u qabatay macalinkiis u qabtay hada ogowde dadkan Everton Arteta kooxdiisu waa ninka madaxad maxaa u malaysa oo meesha taagan waa macalinkii Arteta weligiisu Arteta macalin waa ninkan kooxdiis Everton iyo macalinkiisa hore ee isla Everton ka caabi Arteta xalay wiilkeena dhiiga u shubaynaayo wiilkeena dhiiga u shubayna si horyaalku u guuleystay dhaheen wayna u shuban oo waxay sameeyeen wax aan idna rumaysan karin Manchester City inay bareejo ka toogta waliba horyaal gawaabsi maray oo 4 kulan soo hartay waa wax kale koox kasta ma sameyn karto Everton way sameyn kartaa way sameysay West Ham way sameyn kartaa sidoo kale Crystal Palace way sameyn kartaa Man City hadda labadaas kulan gambirkay way yaalaan kulanka West Ham gambirkay uu yaalaa kulanka Crystal Palace gambirkay uu yaalaa Palace sanadkan waa ogtahay meeqa kulan ay ku garaacday koobay ka qaaday koobay ka reebtay Real ay ku garaacday hadda way kugu soo socotaa way kugu soo socotaa marka ninkii iswaalab waabiya u jooga marka lagu dhahay Manchester City ani dadkana u haaya Manchester City sababta ku dhahay ku sheega labadii xilliyaar la soo dhaafay Arsenal Manchester City 4 dhibcood ay ka qaadatay xitaa 5 gool waraagay horyaalna ma qaadin intee laga haystaa isdhaa meeshana naga haysta waxay Man City ina anaga iskaga garaacana dhibka meesheed waa u deynay dhibcooyin iyada 4 dhibcood qaadatay hadda sunay ku noqday hadda tookadina qaadayna markuu horyaalka 4 dhibcood adaa qaadatay Man City u dul qaada anaga laba xilliyaar la soo dhaafay 4 dhibcood aan ka qaatay meela ku gaari waay marka 4 dhibcood oo sunta ahayd ninkii qaata meel gaareen Manchester City ay siinay sanadka hadda virus ay ku noqdeen iyada oo ku jirta saas loo hayaa iska soo celiyaata way ka taagan tahay waxaana ka sii daran hadda macalinkii ciyaaryahanka bishi loo coday Manchester City loo coday waaba loo codeeyay hala sii in la sii fiicnay laakiin City hadda way jabtay ugu yaraan 2 kulan kala ma aragtay Man City way jabay 2 kulan kala way jabay hal bareeji hal gool door kala ugu jirta haddaan ku dhaha muuqaalkan reefka gasha oo safe garaysa ama ay loof saara si aa u aragtid hadhow Man City 2 kulan kala jabi doontaa kulan bareeji kala iyo kulan laga badinaay u soo socda hadda hormarsan kugu sheeg aniga qabiir sportisa waxda hal mar sheeg ma ku laabana wayna dhacay markay dhacada kadib arki doontaa marka in anaga waxa soo dhaweyn doonaa kooxdii Atletico Madrid حقي برشلونة كجش أنا قاعد مجين بقى كتومينا بق غوريغو ده دروي كسر دماتي إمارات سي إمارايا جلب يحسولا كدرجنا أفرتي جول حسوسا ديب وقع لنا أفر جول كال تشامبيونز ليج فينال ساسا كوجوغا بريمير ليج ساسا بفينال كوتاغنا هل كلهم كلا هدي إي شبت ساسا كوقاد وهاكلو ماشي كمرنين ديفيد رايا قول هايلا ديرسن كرمان حلي ياريت كيس السدحاد ayuu ku guuleystay gacanta dahabka xiliyaareedkii saddexaad ayuu ku guuleystay David Raya goolaha ugu fiican horyaalka Packers Premier League xiliyaareedkii saddexaad inuu qaato goolaha ugu fiican Premier League ama clear sheet oo qaata sidoo kale Premier League xiliyaareedkan uu ku darsada David Raya wax kala waa William Saliba haddii Premier League uu ku guuleysto
Champions League ku guuleysto World Cup-na ay Faransa ku guuleysat wax baasalag leh meeshaas ma idin qeexay faahfaahin ma idin siinaya adaa commenting ku soo qoray haddii Declan Rice Premier League ku guuleysto Champions League ku guuleysto oo World Cup-na ku guuleysat England meeshaasna wax baasalag leh haddii Gabriel Magalhaes ku guuleysto Premier League UEFA Champions League ku guuleysto sidoo kale Brazil ay ku guuleysto World Cup meeshaasna wax baasalag leh Arsenal markaan waxyaabihii iyada dhibka ku haystay oo dhan way u fududaan doonaan sababtan ku dhahayaa ku sheega Champions League wona dhibi waa qaadi doonaa Premier League waa ku dhibtooni waa qaadi doonaa maxaa la Ballon d'Or waa ku dhibneen weligeena ciyaaryahan Arsenal joog Ballon d'Or ma qaadeen hadda markeena waay marka FIFA Gunners ismuujiya aad baad u mahadsantiin muuqaalkan meel fog gaarsii taageerayaasha Gunners dhiig waa idin wataa meel walba joogtiin salaan sare saaxiibadeeda